soo dhawaada daawadayaal galab wanaagsan qodobada xiisaha leh aad galabnimadan aad halkan ku daawan doontaan haddii Baraali laga helana waxaa ka mid noqonaya ciidamo aad u hubeysan ayaa hadda xoog waxa ay ku galeen magaalada Xariirad hadaba sababta maxay tahay ciidamadan yihiin oo ay magaalada si adag ay halkaas ugu dagaalamayaan muuqaalkan ayaan saaxiib yaal idin kula wadaagi doonaa sidoo kale qodobada kale ee xiisaha leh aad halkan ku daawan doontaan haddii Baraali laga helana waxaa ka mid noqonaya madaxweynaha maamulka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro oo fuud u diray Xariirad iyo waliba sidoo kale Gaarisa wax natiijo ah waa ay ka keeni waayeen hadaba sababtu maxay tahay muuqaalkan ayaan saaxiib yaal idin kula wadaagi doonaa sidoo kale qodobada kale ee xiisaha leh aad halkan ku daawan doontaan haddii Baraali laga helana waxaa ka mid noqonaya in ka badan 7 oday dhaqameed oo ka soo jeeda Soomaaliland ayaa hadda gacanta waxa ay ku dhigeen ciidamada geesiyaasha madaniga ee beesha Ciise hadaba sheekadaas ayaan sidoo kale halkan rabaa inaan idin kula wadaago qodobadaas iyo kuwa kale oo aan idin qarinayo ayaa saaxiib yaal halkan ku daawan doontaan soo dhawaada aniga waxaan ahay Cabdiraxmaan Lisbon halkan aad iga daawanaysaan waa kanalkayga Macaash Media haddii aad markuu ugu horeyso fadlan kanalkan rukumo oo subscribe dheh muuqaalkan aad daawanaysid like garaysiin share garay saaxiibada la wadaag kamid noqo saaxiibada cusub ee nagu soo biiray si aan u gaarno 10,000 oo subscribe wax yar oo kaliya ayaa nooga dhiman like dheer muuqaalkan like ta meel dheer ay muuqaalka gaarsiisa subscribe na noo dheer rukumo oo si aan halkan warbixinada iyo sheekooyinka kala duwan ee dhinaca waqooyiga iyo Soomaaliya gudaheedaba aan ku soo gudbino ay ku soo gaaraan mahadsanidin hayay aynu ku bilaawno ciidamo aad u hubeysan ayaa hadda xoog waxa ay ku galeen magaalada Xariirad waxa la warinayaa ama wararku ay sheegayaan ciidamo aad u xoogan oo ka tirsan kuwa ciidamada geesiyaasha beesha Ciise ayaa waxa ay si awood ay ku galeen oo waliba aad u hubeysan iyagoo ay yihiin ay galeen magaalada Xariirad oo ahayd magaaladii dagaalkii uga adkaa ee ka bilowday tan iyo markii dagaalka uu bilowday Samaroon iyo Soomaaliland u dhaxeeyay balse markaan sheekada ma taagna Samaroone waa Soomaaliland iyo beesha Ciise alla meeshas dhibaatooyinka laga soo warinayo markaad aragto indha afka oo maartay gacmaha afkaaga la weynaysa sababtoo meeshas meel waxay ahayd jawigeedu uu degan yahay mar qura ay isku bedelsay magaalo dagaaleed iyo magaalo dhiig ku daatayba marka loo fiiriyo ciidamadan aadka u hubeysan oo markaasi ay lahaayeen beesha Ciise ayaa hadda gudaha u galay magaalada Xariirad iyadoona tan iyo markii dhawaan Soomaaliland ay ciidamadooda ay kala wareegeen beesha Samaroon ilaa haddana ma aysan jirin wax markaasi dhibaatooyin kale halkaasi laga soo wariyo balse laakiin markan sheekada waxa ay noqotay ciidamo aad u hubeysan hub aad u wanaagsan ku tayeysan waa hub aad tayo u leh ay ku hubeysan yihiin ayay mar qura gudaha u galeen magaalada Xariirad iyagoona hadda gebi ahaanba magaaladaasi ay ka socoto rasaas hubka noocyadiisa kala duwan ayaana la isku adeegsanayaa dhowr jiho ayaana markaasi lagu weeraray magaaladan ilaa 4 jiho ayaana lagu weeraray waxaana weerarkaasi geystay geesiyaasha madaniga ee beesha Ciise ciidamadii ku sugnaa Soomaaliland kabta cagaha ay wax ku dayeen oo kabtoodii ay la yihiin nimankan Ciisuhu waa niman aad u adag oo dagaal yaqaan ah oo waliba daris wanaag yaqaan ah balse laakiin markii laga barsado ay ka fiirsan waayeen ayaa dhacday inay duulaano kala duwan ee noocaasi ay sameeyaan balse hadda gacan ku heynta Xariirad waxa gacanta ku haya dhinaca Soomaaliland ay ku sugan yihiin ciidamada inkastoo la eriyay banaanka magaalada loo sii sikiyay hadda gacan ku heynta magaalada qayb ay ka yihiin oo Xariirad waxa markaasi ay wada joogaan Ciise iyo waliba soo kale Soomaaliland waxaana tani ay tahay waliba dhinacyo kala duwan lagu weeraray 4 jiha laga soo weeraray meel qaar way ku xooganaadeen meel qaarna way ka jilcanaadeen oo dhinac ayaa loo sikiyay oo hadda magaalada waa la joogaa oo waxa ay sii noqon kartaa in xaaladdu ay sii bedesho tan iyo markii dagaalkan uu sii daba dheeraado Soomaaliland godkooda markan biyo ugu soo galay Xariiradna Ciise waxay leeyihiin sina uma deynayno oo waan taagnaanayna oo waan dagaalamayna ilaa aan ka xoreyno qodobkeena kale xigana haddii aan fiiriyana madaxweynaha maamulka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa sidoo kale waa markaasi wufuud heer caalamiya oo u diray Xariirad iyo waliba sidoo kale Gaarisa iyadoona wax isbedel ah oo Ilaahay oonta ay waayeen madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro maalmihii dambe dagaal ku furnaa dhanna Israa'iil uu ku soo dhaweynayay dhanna dadkii shacbiga ku kacsanaa dhanna dhinaca beelaha ayaa ku kacsanay balse waxa uu markaasi maadaama ay xaaladdu ay adkeed wuxuu wufuud kala duwan u diray
ciisaha iyo weliba sidoo kale dhinaca xariirad oo samaroonku markaasi loo xagliyo balse wafuudii loo dirayna wax natiija way ka keeni waayeen maxaa yeelay dadkan wax cad ay u baahan yihiin samaroonku marka laga tago ciisuhu waxaa hadda ka hor lagu sameeyey waxaa loo sheegay in nabad la qaadanayo samaroonku hub ka dhigayo iyagana inay hub ka dhigaan balse maadaama lala hadlay waxa ay sameeyeen go-aankii ahayd hubkii ayay meel tiiriyeen balse laakiin maxaa dhacay gadaala inta laga soo maraa la weerar oo lagu dagaalay oo weliba xitaa ciidamadii ugu badnaa ee dagaalka xitaa uma aysan dhimin gaaditaankaas darteed ciidamo fara badan oo ugu dhintay markan way adag tahay sida ay ku aaminaan Somaliland iyo Samaroonkoba marka nimankan waxay yiraahdeen cidaan war ka dhigaysanayna male cidaan war ka qaadanayna male waxaan diyaar u nahay in aan maartay dagaalano ilaa ay naftu nagu jirto balse sidoo kale magaalada xariiradna odayaashii loo dirayna iyagana way natiijo way ka keeni waayeen oo Samaroonku way kala soo hadli waayeen xaaladda taagan iyo weliba sidoo kale in lidin heshiisiyaal rabaa waxyaabo noocaas horey ugu daaleen horaa loogu dhex faa'iideystay marka marabaan in la gaado marka madaxweynaha Somaliland isku daygu uu sameeyay fashil uu ku soo dhamaaday haddase waxa ay markaasi diidan yihiin in gabi ahaanba ay ku dhex milmaan dhinaca muxuu ahaa Somaliland iyo Samaroonku isu waa u diiday qar ayaa la kala taagan yahay dagaalku uu sii dheeraan karaa waa uu sii jiri karaa bilaa soo socda ayuu socon karaa xaaladdu way sii socon kartaa marka loo fiiriyo sida ay hadda wax ku socdaalayaan marka nimankan hadda odayaashan wafdiga loo diray oo natiijada laga soo waayay waxa ay sii dheereynaysaa dagaalkan halkaasi ka soconayo tan iyo markii dagaalkan uu bilaawdeen waxa uu iska noqday dagaal qoryon socda maalinna socdo maalinna uu dego tan iyo markii bisha barakeysnayd Ramadaan bilii kale ka horeeyay waxba la isku mareebanay baaba la iska dhigay oo dagaalku waxa uu iska ahaa mid continue oo iska sii socdo ilaa natiijo la'aan ay dhacdayna waxay noqotay in iyaga si iskooda ay u kala istaagaan kadibna ay mar kale hadda isku laabtaan marka dagaalkan way adkaan doontaa leeyahay in uu hadda sidan uu ku sii damo waa uu sii faafi karaa weliba sidoo kale dagaalkan waa uu sii xoogeysan karaan iyagoona maalinta ka dambeysaba ay dagaalkan qole ay kasoo biirayso marka xaaladda guud ma wanaagsano awdal salal iyo qaybo ka mid ah Somaliland tuulooyinkii durdur burlibaaxle iyo weliba sidoo kale meelo kala duwan oo muxuu ahaa waa ay sii maaragtay kasii daraysaa marka xaaladda waa allow sahal weeyaan wixii wararkeena kusoo kordhana muuqaalada dambe ayaan kula wadaagi doonaa qodobkeena ugu dambeeya markaan aan fiirino in ka badan 7 oday dhaqameed oo Somaliland ayaa hadda gacanta ay ku dhigeen geesiyaasha madaniga beesha Ciise dagaalkii ka socday xariirad waxaa lagu qabtay 7 oday oo ka soo jeedo beesha maartay dhinaca Somaliland ka soo jeedo gacanta lagu dhigay geesiyaasha beesha Ciise hadda gacanta ku hayo xaaladdu way sii fogaanaysaa horeyna odayaala sidan oo kala inta laga qabsaday ayaga laftigooda Samaroonku odayaala laga qabsaday balse markan Ciise jawaab degdeg uu bixiyay ilaa iyo in ka badan 7 oday oo dhaqameed oo ka soo jeedo Somaliland ay gacanta ku dhigeen intuu dagaalka uu bilowday odayaasha inta badan waxa la leeyahay ama ay askartu ay u qabtaan in ay yihiin kuwa dhalinyarada soo diraya oo dagaal oogayaasha yihiin taas darteed waxaana ay sameeyaan in cid kasto oo iyaga ka dacman waa maartay iyaga ka soo horjeedo ama taageero buuxda u muujinayaan inay gacanta ku soo dhigaan oo uu la mid yahay kan dagaalamayo marka nimankii odayaasha ahaa waa la soo qabtay ilaa ay 7 oday ahaayeen hadda ciidamada beesha Ciise ayaan gacanta ku hayaan iyagoona xabsiga caanka ah askarta tirada badneed ee Samaroonka loogu xiray ayaana iyagana odayaashan lagu dari doonaa oo waxay noqon doontaa in Somaliland iyana markaasi dhalinyaradaasi odayaashaasi ay soo raayso waliba dad nabadoonna ah iyo waliba sidoo kale salaadiin oo waaweyn ayaa ku jirta leeyahay dadkan la xiray Ciisuhu waa dad naxma ahan marka loo fiiriyo waa dad dagaal yaqaan ah waana dad kartidooda iyo waliba sidoo kale muxuu ahaa hadalkooda uu isleeyahay waa marka intii dagaalkan uu bilowday xaaladda aad ugu xumeed dhinaca marka loo eego beesha Samaroon iyo waliba sidoo kale dhinaca Somaliland Ciise wali barnaamijkiisu ku jira dagaal uu diyaar u yahay waxa uu rabaa inuu labada dhinac uu ku guuleysto marka waan arki doonaa xaaladii ugu dambeeyay wixii soo kordhaba guudaan halkaas ayaan jeclahay daawadayaal inaan ku soo gabagabeeyo muuqaalkan haddii dadkan la soo gartay waxa qof qalbi wanaagsan waxaan san asli kaaga codsanay inaad kanalkan soo subscribe gelisid muuqaalkan la garay share garay saaxiibada la wadaag oo kuma haysantiin daawashada muuqaalkan mahadsanidii